الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u soo gudbinayaa salaan kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waaqaca maanta jirana ka hadlo mahad celinna aan sameeyo oo ugu horeeyo Allah subhanahu wa ta'ala. marka hore waxaan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala suura geliyay dib u heshiisiintii ka socotay koonfur galbeed kuna dhameeyay guul ilaahay mahad celintiisa kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dawladda koonfur galbeed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalihii ismaandhaafka ka dhaxdhacay dabadeedna garwaaqsaday maxay ahayd inay la wada qaato tubta toosana la wada maro heshiisna la wada qaato raggii u dhashay koonfur galbeed ee fikirka duwan gaarka ka haystay ikhtilaafka ummadda waa wax jiri kara waa wax loo baahan yahay in la iskhilaafo ereygan saas waa in la isku qabto balse waxa la rabaa inay u dhamaato ittifaaq iyo isfaham guud ahaan mahad celintaas guud aan soo jeediyay wixii koonfur galbeed ka dhacay cid kasta waxay ka qaadatay doorkii ay lahayd haday dawladda federaalka tahay madaxweynaha dawladda federaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka door lama ilaabana ayay ka qaateen mahadoodana way leeyihiin waana in loo mahad celiyo biyo kama dhibcaan gudoomiye Sheekh Aadan aad iyo aad buu mahadsan yahay muddo badan buu muxuu ahaa iyo waqti badan iyo juhdi badan buu ku bixiyay in ummadaas islaax la dhaxdhigo madaxweynaha sidoo kale dawladda federaalka dadaal muuqda ayuu sameeyay madaxweynaha dawladda koonfur galbeed oo asaguna dulqaad iyo dabac iyo mudnaan badan siiyay sidii loo heshiin lahaa walaalaha iyo midowga musharaxiinta nooc kasta isugu jiraan oo ayaguna bahasha ku soo dhameeyay is-afgarad dhamaantiin waa mahadsantiin intaas markaan ka gudbo xalay taariikh baa dhacday ummadda way isdagaashaa maan rageedna mudac afkiisa weeye isma qabto laakiin waxa doqonnimo ah in khilaaf shakhsi ah loo bedelo khilaaf ijmaaci ah waxaan cadeynayaa dawladda koonfur galbeed iyo shacabkeeda ma dagaalin dawladda koonfur galbeed iyo shacabkeedana iskama hor imaanin waxa iska hor yimid dawladda koonfur galbeed iyo rag siyaasiyiin ah aragti kala ha arinta siyaasadda ee koonfur galbeed ayaa khilaaf ka dhaxdhacay ma aha ummadda reer koonfur galbeed shacabka koonfur galbeed iyo sida mararka warka loo dhigayay iyo dawladda koonfur galbeed iyo shacabkeeda inay dagaalameen ma waxaan cadeynaynaa shacabka koonfur galbeed inay nabdoon yihiin shacabka koonfur galbeed inay deganaansho rabaan shacabka koonfur galbeed inay yihiin shacabka ugu nabadda jecel shacabka ugu deganaanshaha jecel shacabka ugu dawladnimada jecel ee Soomaaliya inay yihiin waxa maragma doonta ah dalka inay ka jirto dhibaato weyn dalka inay abaaro iyo al-shabaab iyo waxyaalo badan isu kaashadeen waxa cadaan banaanyaal ah ummadda inay soo barakacday ummadda reer koonfur galbeed
oo ugu yaraan 5 milyan ah ugu yaraan 2 milyan in ku dhow inay yihiin barakacayaal ka soo barakacay deegaankooda arrin shabaab iyo arrin abaar daraadeed u soo barakacay ummadaas deegaanada koonfur galbeed ee xurta ah ayay dhooban yihiin allah bay leeyihiin dawladna way leeyihiin waxaan rabaa inaan cadeeyo dawladda koonfur galbeed oo hadda uu madaxweyne Cabdicasiis madaxweyne ka yahay berrina uu nin kale ka noqon doono saakuuna nin kale ka noqon doono dawladnimadeeda waa lama taabtaan ummadda ayaa leh bulshada ayaa leh islaanta xaabada guraysa iyo ninka madaxweynaha ah inta u dhaxaysa wada la dawladnimada markay taagan tahay qadiyada iyo dawladnimadu markay taagan tahay masiirka ummadan iyo dalkan iyo wada muxuu ahaa markay taagan tahay lagama gorgortamo dawladda markaas faraha ku haysa iyo ama mucaarad ha noqdo ama shacab ha noqdo ama ninka saan waajib ba ka saaran muqaddasa in la ilaaliyo dawladnimadaas dawladda koonfur galbeed inay ilaaliso qadiyada dawladnimadeeda inay ilaaliso jiritaanka baarlamaankeeda inay ilaaliso jiritaanka dastuurkeeda inay ilaaliso qabka koonfur galbeed inay ilaaliso qabka dawladnimada koonfur galbeed mahad ballaaran bay ku leedahay waan u mahad celinaynaa maxaa la isku khilaafay lama dhihi karo waa taan sheegay maalin rageed waa mudac afkiisa walaalahay mudowga musharaxiinta ayagana mahad ballaaran baan u celinayaa alla garansiiyey ku qancay fahmay wada hadalku inuu yahay tubta toosan ee dawladnimada lagu fulo wada hadalka iyo afgaradka wada hadalku inuu keenayo isfahankan inuu keenayo dadnimo iyo dawladnimo inay keenayso alxamdulillah sidii shalay maanta aan ahayn waxaan rabaa ummadda reer koonfur galbeed dhammaantood inaan u sheego shacab iyo dawlad iyo mucaaradba ayankaan inaan u sheego dalkan waa la wada leeyahay waxa naga dhaxeeyana waa calankan guud ahaan Soomaaliya waxa naga dhaxeeyana waa calankan marka koowaad waa inaan calankan dhisnaa marka xigtana waa inaan calankaas dhisnaa haddaadan calankan dhisin calankaad dhisi weydo kan wax uguma maqnid mana dhisi kartid qofka marka daatadiisa uu sameeyo shakhsiga wanaagsan ayaa qoys wanaagsan noqda qoyska wanaagsan ayaa degmo wanaagsan noqda degmada wanaagsan baa dal wanaagsan noqota cid kasta oo adkaysay cid kasta oo ku mintiday qadiyada iyo muxuu ahaa sareynta dawladnimada koonfur galbeed waa u mahad celinayna Soomaaliya dawlad federaal iyo 5 dawlad goboleed oo xubin ka ah dawladdaas federaalka ayaa ay jirtaa geed walba in gubta waa hoostaala geed kasta in gubta waa hoostaala dawladda federaalka dhibaatada taalo waa arkaysaan ayada laftigeeda dhibaata hoostaalo gudaheeda marka tagtid caasimada marka aragtid problemka jira waad arkaysaan meel madaxtooyada u dhow in hoobiyaal ku dhacayaan qarash iyo adduun qarax iyo problem uu jiro waa u jeedaan waxa yar ee koonfur galbeed ka dhacay iyo muddada gaaban ee xalisteen reer koonfur galbeed muxuu ahaa waa ku mahadsan yihiin maamul goboleedyada oo dhan waa soo marteen xaqiiqada haddaan la sheegin wax problema oo muxuu ahaa xaqiiqada haddii la sheego oo run loo hadlo wax problema ma dhiciyaan meesha la yiraahdo maamulaalaha koonfur maamul goboleedyada kale xageen wax ka dhicin Jubbaland wixii ka dhacay waad ogeydeen galmudug wixii ka dhacay waad ogeydeen Puntland wixii ka dhacay waad ogeydeen ilaa hadda waxa Somaliland iyo Puntland laascaano iyo tukarraq wixii ka dhacay waa la ogaa boosaaso wixii ka dhacay waa la ogaa dhowsamareeb iyo muxuu ahaa galgaduud wixii ka dhacay ahlu sunna iyo lasku baabay waa la ogaa Jubbaland doorashadeedii wixii ka dhacay waa la ogaa arrin bilaayo ka dhacdo masiibo ka dhacdo inkaar ka dhacday kali in lagu takooro la yiraahdo ma arkaysaan ma u jeedaan ma arkaysaan koonfur galbeed maaha wixii geed kasta in guuto waa hoostaala wixii dhacay baa dhacay
laakiin alxamdulilah waa laga gudbay waana la isfahmay waana soo dhaweynaynaa fahamkaas asaga waxaan rabaa inaan sheego reer koonfur galbeed baan rabaa inaan la hadlo khaasatan bulshada koonfur galbeed baan rabaa inaan la hadlo reer koonfur galbeed ummaddu magaaladaas waxaa degan dad ganacsiyo ah oo warshado ku leh oo beeko iyo warjinay la yiraahdo ku leh oo adduunyo iyo muxuu ahaa ganacsi sareeyo ku leh oo hantidooda iyo dhaqaalahooda wadanka uu yaalo wali lama arag ganacsato leh inta urursatay le dalkan annaga leh warnamayaho waxaad wadaan ma rabno warnamayaho kaalintaan sidaad wax u wadaan yeeli mayno wali lama arag ma rasbaatihiin ma ummad la haystaatihiin maxaa fikirkiina iyo dadnimadiina iyo dalka idinka leh idinka muxuu ahaa ganacsiga iyo hantida iyo waxa dalka yaala idinka leh maxaa doorkiina u qaadan weydeen waxa amaan ballaaran u soo jeedinaya oo sharaf iyo karaamo leh odayaasha dhaqanka reer koonfur galbeed oo maalintii dib u heshiisiinta lagu dhawaaqay ilaa saako la soo gabagabay majaraha u hayay dib u heshiisaas guulna ka keenay ugu dambayna ku dhawaaqay waa maasayihiin taariikhda qori doonto waxaan guud ahaan soo dhaweynaynaa heshiiska la gaaray cid ku dulman iyo cid wax looga dhimayna ma jirto nin kasta asagoo faraxsan buu maanta hadduu mucaarad ahaan magaalada jooga hadduu shacab ahaana muxuu ahaa awal buu rabay wuusan sheegi karin wuu barwaaqaysan yahay dawladda koonfur galbeedna maxay diiladaas waa bay dhalisay alxamdulilah wayna aqbashay waxaan rabaa inaan la hadlo siyaasiyiinta reer koonfur galbeed مليه معارض يا محافظ من شيء ما سياسيين ترى كوفر قلبيت باربعة إن الله هذا هرت وحارب عن كستو أو مدحوين النقضو مدحوينها هاد مدحوينها عبد العزيز لقى بالله وإيه المالين تقيام إنك مدحوين كنا نقول دونه وحي بحي رمادي رمادي سياسي هذا الأوجين بانجرون كيسا ماشو كسو جيدو متولو كل شيء ما قويس فقري وكل شيء ما قويس أسلوبي سنة قويس دينه وكل شيء قف كوائنا بروفايل كيسا للراعة أو قف متأذى متكرم أو كراميسان أو شرف له أو ميل أو كبقو يميل أو جيدة وإن هرت السياسة ده لسوق جريا لورنا دورتا بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا بغير كد الله عمره في طلب المحال إن ما أنت لسككينو قف لسككينو وحيط ليس إن قف from bush ككنتي بلشدة أن هو قونين مجالة كنتي حل سيسي من لبعض قدرتي حلبان كدكتي وزير كدكتي هير فدرال جيسي حلبان فدرال كدكتي وزير فدرال كدكتي فهمي وايو وحاصلون فهمي وايو oo marka dambe ku fakira dawladdan waa dhamaatay midaan kale mira guntaada ku jira mid geesaran loo madaajo qadiyada iyo dadnimada iyo fahamkaba aqoon hatta ala aqal fahmi waaya insaaniyada ma lam yashkuri naas la yashkuri allah qofkan walaalkiis wax taray aan u mahad celinin allahna ma yaqaan mahad uma celinayo siyaasiyiinta koonfur galbeed waxaan rabaa inay fahmaan danta ayaga leeyihiin iyo danta reer koonfur galbeed inay kala saari karaan siyaasiyiinta koonfur galbeed waxaan rabaa inay qadada maanta iyo gaajada maanta ay sharaf badan tahay gaajada maanta ayna dulli tahay wax xun ay noqonayso qadada maanta gobonimadu gaaja lagu ilaaliyo gobonimadu sooriyo iyo soor laguma ilaaliyo on wali araanaha balas xurmidaagaas bitinin iriga deegas koy wal aan leh hadii ka galo dadnimadii iyo balasnimadii iyo qadiyadii iyo ilaahiyadii iyo sunnadii dhama ku tabaas haranga amas bakti amas markii dambeen ay dhimadii amas siyaasiyiinta reer koonfur galbeed wali fadaane jeebka iyo qadiyada dalka in jeebka ibirhaado qadiyada dalka bato fadaan ilma adeerayaalow inni ad meel raay galanta wal galaan markaas ku bacdana adan adeegsato intii siyaasadda meel raay adan awoode iyo meel raay kala adan lakato eedan xumta wada tashi isfahan reer koonfur galbeed aan laha dhamaantiyo
وليس هلك كوي سهلا كبهايا ولي لكم مشاورون هذا انكم فكرنين دقدقه كبهايا ولي ايزي كوم ايزي جو ولي سهلكين كوي كوكا تباين هتن سهلك لي ما يقبل دولة هذا رايت أو السودان لما يكون لبعتي أفرت إني لقيتو دولة اللي مفكري دولة اللي بنها نسوقلين أخلاقيات كقف دولة لباري جاسوس اللي ندرس هذه الفضاء جسور لها مريو أخلاقيات جي لبارو تاريخ النولوجي جي لبارو انتهاء كوجيد اللي بارو دن ميديس لبارو قويس اللي بارو محور نكان كل شيء انت لنصوب يلا فده دتك ولا لك دور ده إني هذا والك دور طلف ده دين يخلق إن هذا كدور تبعات يدين إيمان إني هذا قفك كدور طلف ده شخصيات بسمو إنسانية ده مساكن تقول نيو جد كاسك جذا هايتو مساكن ته بورا هايتو إني هذا كنتو إن لك خلوا فلان أنت أصولين لها جودان سياسيين في الصوماليا والرلمات إمرسد هذا وليه الروايانة دولة ما هشيسك لديري أو سجر وذين كوهاي قدومية شيخ آذن مدحوينه محوها مدحوينها حسن الشيخنا وسجهدي بدن كبي مدحوينه عبد العزيزنا ومجرها وقبتي للسي دلقات ويا شيء خيريه لا صاري لا فريستي ان لكعن dhamaantood waa maasan mucaaradkeena walaalaheena sharafta leh oo si mar u arkay laakiin garowsaday markii dambe isku laabtay fahmay waa u madcelinayna ما دري ما يقضياش واوين أو مشرحين تأه إن يهين قضيال ضل كان نباطئيو خبشئيو الدون للربا هذا يسكن نقطتين فهمي لكن فداي دي جنولكي دات اسكو اي وجر او بايدو روغو ما دولay gurbaanteen dhow inuu dabaraana isku ay wajar ala kulli xaal dadkii sugaay in mar la raay is tabarba run sheegdi hawdi oo bay sheegdi dhamaan ummadda reer koonfur galbeed waxaan rabnaa inaad gacmaha isqabsataan kama naas laabaas maamul goboleedyada kale amal inaad u dhaqantaan dawladda federaalka waxa naga aadan ina aadan mid kale Soomaaliya jihada la aaday waxa weeye maamul goboleedyada oo dhan al-shabaab way iska soo xoreeyeen annaga noo yimaadeen feestuba liiri waxa laga bilaabi doona koonfur galbeed yaa waay maxoolaha iyo shimbiraha iyo dugaagta miya aaday dadka aaday xagee joogaan waxa la rabaa inay aadaan dawladda federaalka dawladda koonfur galbeed iyo mucaaradka koonfur galbeed inay isla aadaan al rabaa إذا أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون هذه يا ربك أرض دجال قال أنت إذا كسجينا لما ربه معارضك وحال جرها لفتجي سقريها إنه ساقاته دولة دينا كاستاجو دجال كلا وذا قاله ضمن ماذا سكجرت إنسانية دا كجرت صومال لماذا كجرت كفر قلبين لماذا كجرت ورحنا ولا جواه عف الله عما السلف وحي هرواد دمادين بيج عصب الله فري جهاد الله صعد إن أنا الربا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته